Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa magaalooyinka caalamka. Magaalooyinka aan muuqaalkeena kaga sheekeyn doono. Magaalada caasimaddu waa dalka dhaqaalaha koowaad ee adduunka Mareykanka, Washington, iyo magaalada caasimadda dalka Japan ee ah dalka isagana ku jira dalalka caalamka kuwa ugu horeeya ee xagga tiknoolajiyadda. Intaanan muuqaalka gelin, fadlan like saar, hana ilaawin inaad dadka la sii wadaagtid. Aan ku bilowno magaalada Washington. Washington waa caasimadda rasmiga ah ee dalka Mareykanka ama gobollada midoobay ee Ameerika ee loo soo gaabiyey USA. Magaca rasmiga ah ee caasimadda waa Washington DC, si looga sooco gobolka Washington ee gobollada dalka ka mid ah. Caasimadda waxay dhacdaa gobolka Columbia ee dhaca jihada bari ee Mareykanka, waxayna u dhaxaysaa labada gobol ee Virginia iyo Maryland. Markay ahayd 16 July sanadkii 1790, aqalka Koongareeska ee Mareykanka wuxuu isku waafaqay dhisidda caasimad qaran sida uu qorayay dastuurka Mareykanka. Arrinta waxay keensatay in loo baahday gobol ama meel keligeed madax bannaan oo aan raacsanayn gobollada kale ee Mareykanka, kuna jirta gacanta xukuumadda federaalka. Kadib waxaa caasimadda laga dhisay goob dhacda webiga Potomac oo ayna ku tabaruceen gobollada Virginia iyo Maryland. Laakiin gobolkii ama qaybtii Virginia laga soo qaatay dib ayaa loogu celiyey sanadkii markay ahayd 1846. Kadib caasimaddii way ballaaratay, waxaana asaasantay caasimadda cusub oo lagu magacaabay George Washington. Tirada dadka degan Washington waxay gaarayaan 681,170 qof. Tirada dadka waxay korortaa maalmaha shaqada, waxaana caasimadda yimaada dad badan oo ka kala yimaada gobollada sida Maryland iyo Virginia. Waxayna dadkan gobollada ka yimaada gaaraan wax ka badan 1 milyan oo qof. Dhaqaalaha Washington DC. Washington waxaa loo arkaa in ay leedahay dhaqaale kala duwan, haddana kobcaya oo koreeya. Sidoo kale waxaa kordhaya nisbada shaqooyinka dhismaha iyo faafidda ganacsiga xorta ah. Tiro yar oo ka mid ah dadka magaalada ayaa ka shaqeeyaan dhanka farsamada. Ha ilaawin ayadana, magaaladan sanad kasta waxaa u soo dalxiis taga malaayiin ruux, waxayna ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha suuqda magaalada. Goobaha ugu caansan ee magaalada Washington. Goobaha siyaasadda waxaana ka mid ah aqalka cad ee Mareykanka, aqalka Koongareeska ee ka kooban 540 qol, taalooyinka xusuusta ah ee madaxda, taalada Lincoln, taalada Jefferson iyo taalada Franklin, maktabadooyinka, maktabadda Koongareeska iyo maktabadda Folger Shakespeare, mataaxifta sida Matxafka Taariikhda Mareykanka iyo Matxafka Caalamiga ah ee Jaajuusyada. Matxafkan wuxuu soo bandhigaa tiro qalabka jaajuusidda loo isticmaala, iyo Matxafka Duulimaadka iyo Hawada Sare. Marka kan waxaan ka sheekeynaynaa caasimadda dalka Japan. Magaca caasimadda dalka Japan waa Tokyo. Magaaladan waa xarunta siyaasadeed ee dalka Japan iyo xarunta uu degan yahay madaxweynaha dalka. Waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn ee dalka Japan, waxayna dhacdaa afafka hore ee khaliijka Tokyo ee dhaca xeebta badweynta Pacifica. Sidoo kale magaaladan waa marin u muhiim ah caalamka, maxaa yeelay waxay kulansataa shabakad weyn oo ka kooban khadadka tareenada ee dhammaan dalka Japan. Magaalada Tokyo waa xarun dhaqaale iyo farsamo, waxayna kulansataa tiro mu'assasaadka waxbarashada sare ah ee heer caalami. Magaaladan badkeedu wuxuu gaarayaa 2,820 kiiloomitir oo iskuweer ah. Dadka degan magaaladan waxay dhaafayaan 37 milyan. Marba marka ka dambeysa tirada dadka way sii kordhayaan. Dadka degan magaalada 98% waa Japanese, halka 1% ay yihiin cirqiyo kale sida Korean, American, Brazilian iyo Shiineys. Tiknoolajiyadda Tokyo. Tokyo waxaa loo arkaa in ay tahay meesha ay u jihaystaan dadka jecel tiknoolajiyadda iyo horumarka, ahna mid ka mid ah magaalooyinka caalamka ugu weyn xagga horumarka. Magaaladan waxay goobjoog u ahayd wax badan iyo dhacdooyin badan oo xagga tiknoolajiyadda ah. 2017, magaalada waxaa lagu qabtay bandhigga shirweynaha Nenotek. Sidoo kale, magaalada waxaa lagu qabtay shirka Aasiya ee tiknoolajiyadda sanadka markay ahayd 2016.
Magaalada waxay leedahay bandhig lagu soo bandhiga wixii la xiriira tiknoolajiyadda Japan iyo horumarkeeda. Waxaana lagu magacaabaa Matxafka Qaranka ee Culuumta Cusub iyo Hal-abuuridda, waxaana loo yaqaanaa Miraya Kin. Waxbarashada Tokyo. Shacabka Japan waxaa lagu tiriyaa shacabka ugu thaqaafada iyo waxbarashada badan. Saa ay tahay, dadka badankooda waxay wax ka bartaan iskuulada dawladda, ayadoo ay faafsan yihiin iskuulada gaarka loo leeyahay. Waxbarashada dugsiga hoose waa waajib carruurta, gaar ahaan da'da 8 sano iyo wixii ka weyn. Malaayiin arday ah ayaa waxay ku tartamayaan in ay galaan ayna ku biiraan jaamacadaha ugu sarreeya ee dalkan ee Tokyo ku yaala. Dalxiiska Tokyo. Ururka dalxiisayaasha waddanka waxay tilmaameen in 12 sano ee ugu dambeysay ay kordheen dalxiisayaasha u jihaysanaya dhanka Tokyo. Goobaha ugu caansan ee Tokyo. Burjiga Tokyo. Burjigan habeenkii wuxuu ifiyaa midab cagaar ah xilliga lagu jiro xilliga xagaaga. Qorraxeedkina midab cad ayuu ifiyaa. Matxafka Qaranka ee Tokyo. Qasriga Boqortooyada. Waa qasriga uu degan yahay boqorka ama boqoradda, waxaana loo arkaa in uu ka mid yahay goobaha ugu caansan ee caalamka ee soo jiita dalxiisayaasha. Intan ayaa muuqaalka maanta ku soo afmeeraya. Haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan like saar. Haddii aadan weli kanaalka ku soo biirin, ha ilaawin inaad subscribe saartid, notification-kana aad furatid. Inta aan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga, waxaan inkaga tagayaa saa iyo nabadgelyo.